maanta oo kale dunida waxaa looga dabaaldegaa maalinta naafada adduunka oo ku beegan 3 Disembar sanad walba munaasabadahaas ayaa lagu dhiirigeliyaa dadka baahiyaha gaarka ah qabee ku nool dhammaan daafaha dunida taasina ay keento in ay ku soo bandhigaan dhibaatooyinka iyo tacadiyada ay kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in 15% kamid ah dadka ku nool dunida ay naafo yihiin wadamada soo koraya waa kuwa ay naafadu si aad ah ugu fido iyadoona ay sababaan dhibaatooyin dagaalada iyo xaalado caafimaad sidoo kale hay'adda UNESCO ayaa sheegtay in 90% kamid ah carruurta naafada ee ku sugan dalalka soo koraya aanay helin adeegyada aasaasiga ee bulshada geesta kale dhibaatooyin fara badan ayaa haysta waalidiinta ubadkoodu naafada noqdeen si ay u daryeelaan qaar kalena waabay kaba carareen amba waabay kaba fogaadeen markay arkeen ubadkoodii oo naafo ah taasina ay keento in badan oo ubadkaasi ay ku dayacmaan dunida si kastaba ha ahaatee ilaalinta xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba iyo waliba sidii loo horumarin lahaa adeegyada ay helaan oo ay ugu horeyso waxbarasho caafimaad oo lagama maarmaan u ah nolosha taasina waa mid looga baahan yahay in ay ku dadaasho xukuumadda iyo hay'adaha u xilsaaran ilaalinta iyo daryeelka dadka baahiyaha gaarka qaba iyadoo ay jiraan dhibaatooyin fara badan oo haysta dadka baahiyaha gaarka qaba oo ay ugu horeyso in ay shaqo helaan amba ay guursadaan taasoo caqabad ay kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin haddaba Maxamuud Xasan Khaliif Albani waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa waxaanu ka mid yahay dadka baahiyaha gaarka qaba waxaanu ka warbixinaya dhibaatooyinka haysta dadka uu ka mid ka yahay isagoo sharaxayana waxa uu yiri Maxamuud Xasan Khaliif oo ku magac dheer Albani bal waxaad nooga warbixisa taariikhdaada iyo goobtaad ku dhalatay iyo sidoo kale waxbarashadaadii insha Allah xamsa ku madceliya jazakallahu khair taariikhdayda kooban hadan dul maro miyiga ku dhashay hasaada miyiga ku dhashay miyiga caqabadaha waska garanaysa dadkan ama naafada ama curyaaminta walayasa taa waxa xigta ama labada waalid tusaalahaan qof lixdiisii lixaad qaba ay jecel waayaa ma xoolo ilaalinaya ama hawlihii kala adduunyada mar kullayba ninkan naafada lama jeclo saadaradeed miyiga waan ka yimiday waxba bartay nolosheedii runta alxamdulillah wax farbad ba isbedelay ayaa soo kara marka insha Allah sida ba wanaagsan bal ka waran markii aad miyiga aad ku noolayd aad yarayd ka waran dadka deegaanka aad ku noolayd sidee ku dhaqmi jireen wallahi dad iska reermiyo way cawaana meesha tusaaladan ku siidee markan gurguurin jiray ayuu insha Allah wadaayar kan carri waana marka iyo in lagu qoslo marka socdo metelan ama gurguuranayo ama talabaad xigtay reermiyo sida jaaliga ku farabad aad buu yasaan naafada waxaad bal noo sheegtaa dhibaatooyinka ku gadaaman dadka naafada ee ku dhaqan Somaliland wallahi horta bulshadu ma wala xumo faraasi ma sino saaso kale weeyaan in wax ma garata way jiraan oo metelan baabuurku ku jiirsiinaysa metelan kooransa adarkaariyo la wataa ka beed wadada metelan kooransa ku yeesisa metelan aad runtii marka bulshadu ma sino maadaama sida qaar fiican wiilay qaar xun wiilay labada wiilay marka bulshada anu saaxiibo badan baan ku leeyahay waan soo la naqaana marka runtii aad baa amaanay bulshada inta wax ma garata intaas waa waxeeda waa waadax irsaneysay Maxamuud aad ku haystee bal ka reerka inantaad ka doonaysay wax ma kala kulmeeyada lafteeda wallahi runtii caqabadaas aad waa tagu badan soo kara naafada way haysataa gabadh baan jeclaaday gabadhaad waan heshiinay sidii shariicadu ogashahay waxaan ku yiri aqsoo doonto ehelkeedii u gudbisay waxa la ninka curyaanka waa sidee ma yaa magaalada ninka weeday kan sidana maxaad ku falaysaa ma garatay inantii ugu soo warcelisay saasada labadii waalid ay yiraahdeen waxaan ku raado go'aan qaado ma labada waalid baa daacaysa misaaniga dabadtaadu inantii say doon haato way iyaga raacday marka caqabadaha ugu waaweyn haysta waa taas waa ka mid taguurku waa ka mid kala jirto iyadana waxa jirta dumar naafa raggu alxamdulillah badanku dumarka dhan waa isku fiicanay aan dumar badan soo guursay waxa baan aaminsan ka cagaha qabaa kana cagaha leh waxa ka yeelan kama helayaan inuu aaminsan
waayo dumarkan iyagana naafada ah wax raggii waxaan ma guursadaan wuxuu horeeyaa tan maxaan ku filayaa dumarkii naafadahana bimacnaa wax guursay ilaahay qaar fara badan ogaanu qaar fara badan ayaa waxa guursay ilaahay nidaahdaan qofka qalbiga ayuu naafakay ee adimada iyo indhaha iyo lugaha toona naafaka ma bal maxaad soo jeedinaysaa umada daniyo horta waxaan u soo jeedinayaa horta naafanimadu wax la soo ibsaday maaha waa kow ninka naafadana waxaan u sheegayaa ilaahay ma necbo waxa la eegayaa iimaankiisa ma ku samri karaa imtixaan la adduunyada waa imtixaan inuu isaguna ku samraa waajib bulshaduna intan inay yasaan ayaan aad u soo jeedinaya inay yisin oo bimacnaa hadday yasaan waxa laga yaabaa si qaar fara badan oo dhacday waa nala yasaa u jirta yasida asaata kulli waan waxaan saarayaa ama hal lagu yasa ama hal daayo naafadu waa inay sharaacada barata ay cilmiga ay bartaan xamse xirsaxayd telefishinka caalamiga Kalsan TV